السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وكسروا الأقليد ديزاينز أمر والبكلا سعتان علمي كمبيوتر كي برامج ملتي ميديا عشر كان وحوك سبسين سيدا لو نشخديو بيزنس كار أيام كل وداقي دونا إن شاء الله أنا قوة استعمال دونا برامج كادوب فوتوشوب سي سي 217 برامج كالات الوايس ومد مهمة حواي فرشان سكيلي كل دويه شغل واسلوب مدكي وحيقول لكم حرنتا ديزاينر مركاتهي سيدا عادي أدو فكرة كريتيفيتي قاعدة دار إيماني ست kusoo dhawaad alqalid designs mar kale. markuu wareyso marka photoshop ka soo kicisid file new aad leedahay ama new project ayaa leedahay ama file new kadibna cabirka inta ayaad ka dooranaysaa meeshan horta meesha intaad qoray magaca business card ayaa u sameynay magaca waxa sameynaysid ayaad qoraysaa business card kadibna meeshan waxaad ka dooranay waa inji uu dooriyahay cabirka waa 3.5 joogana 2 resolution kii 300 ku ahaada tan create cabiro ku siimo fit oo ku dhig kadibna control 0 leh ama control o leh si aad fit u dhigtid control 0 kadibna control o ayaa leenahay opening way loogada aad ku shaqeynaysid ayaa soo gashanaysaa kadibna inta ay markaa keensatid waxa soo bandhigaysaa xogtii aad ugu talagashay meeshan okay meeshan gey okay intaad meesha kala tageenin shifti qabo yaray looga iska yaray xag markaa geyso waxa la rabaa automatically in la qabsato oo wax badan aadan gelinin kadib move garayso qaybtan keen waa wili inta mo control minus control t de shift qabo minus soo yaray xarbna loogada ayaa ku shaqeyn rabnaa kadib enter leh control 0 leh kadibna loogada inta keenso okay kadibna shape soo qabso shape kan inta dhex dhig kadibna shape marka inta soo dhex dhigtid okay shape kan waxaan rabnaa inaad ka sameystid colorka loogada inaad ka qaadatid kaliya ku siinaysaa kadibna color overlay automatically colorka meeshuu yahay uu qaatay kadibna okay ayaa leedahay kadibna okay ayaa leedahay okay waxaan rabnaa hadana inaan u sameeyno shape kani inaan inta aan gashan rabnaa sida u sameyn kartaa shape qabso kadibna Excel tool ka qabso kadibna shift qabo cabir isla ay ku sameyso kadibna shape kan kormarsi kadibna dhaxda gey kadibna colorka ka bedel dhaxda colorka dhaxda hadana ayaad ka dhigaysaa stroke waxaad ka dhigaysaa waa colorkan uu ku fadhiyo si aad u dhigi kartaa click ku sii layerka ama right click ila dhahay blending stroke door stroke markaas soo doorto meeshan fur colorka aragtid waa blue kadibna okay kadibna okay loogada tag hadana kormarsi waxaan dhaa iyada ugu koreynayso kadibna inta qabso inta keen control t de kadibna okay yaray weynayso kadibna enter okay sida markaa u sameysid kadibna hadda waxaan rabnaa control j de shape kan kadibna soo jiid control t de calaamada aspect ratio door kadibna enter colorka bedel meeshan color blue ka dhig kadibna kori hoos kadib okay click ku sii waxay soo bixiyay color overlay dooro ina gudaha ka soo bedeshay rabta kadibna meeshan colorka fiilka dooro kadibna okay enter okay gudaha u geli banaankii soo taalaa gudahan gashanayna okay saas oo sameyn kartaa xogta kadibna waxaad ku qoranaysaa meeshan xogta meesha inta loogu talagalay inta ku qornay kadibna qoro salahan magaca company-ga aad leedahay ama aad qoraysid ee kormasini magaciisa ayaad qoraysaa farta iska yaray 20% ka dhig kadib yareynaysaa alqalid designs ayaad qoray kadibna farta 8 kadibna select color
backgroundiga kadib saas markaa u samaysid hadda waxaa samaysanaysaa xogtii ayaad qornay inta soo qori kartaa inta saan u qabso kadibna xogtii inta ku diyaarso farta waxaad ka dhigaysaa far caadi ah Arial oo qof walba aqoonsan karo kadibna meeshan kalarka waxaad ka dhigaysaa kalarka loogada ay ka kooban tahay kadibna qofkan magaciisa horta Salaam Maxamed title-giisa waxaa waaye designer xogta inta badan laga heli karo qofkan sida nambardiisa eber 6 ama lambar kale ayaad qori kartaa haddii aad leedahay haddii aadan lahayn waad ka tagaysaa kadibna emailkaada aa@alqaliji designs ayaad qoraysaa haddii gmail shirkadaada ay kambanigaada ay leedahay waxay ku siinaysaa sub email websitekeeda qayb kaaga siinaysaa kadibna facebookaada waxa waaye facebook waxaa lagu qoraa magaca kugu qoran Cabdi Salaan kadibna Instagram haddaa leedahay waxaa meesha lagu qoraa Ctrl+C Enter Ctrl+V kadibna meesha kale dabas waxaa locationka aad degan tahay hodan kadibna meesha title waxaa qore waa typecon inaad qortid telefonka W whatsappka kadibna Ctrl+C qaybta kale tag Ctrl+V dooro Facebook dooro V Instagram kana V dooro Twitter qaybta ugu dambeysa waxa waaye waa locationka M ayaa lagu doortaa waxaan shortcutkan waa waxyaaba ay wataan inta badan barnaamijyada ugu dambeeya waa fonts waa khadka ay ku jiraan waa soo degsan kartaa kadib hadda waxaad samaysanaysaa qoraalo kala ama design kala duwan oo kala duwan oo qurux badan sidaan hadda u jeedin kadibna designkan laba u qaybsan kartaa kadibna sidaas markaa u samaysid designka labada kalar ay ka kooban tahay ayaan ku sameynaa okay qaybtan hoos marsiye okay sidaas markaa u hormarsiisid kalarkeeda dooro kadibna Ctrl+J markaad dooratid kalarka soo dhaweey kadibna Ctrl+T kadibna U dooro kalarkan bedel waxaan ka doornay loogada qaybta kaleeta sidaas markaa u dooratid haddana shape kaleeta soo qabso qaybtan inta keenso sidaas markaa u dooratid kadibna Ctrl+T calaamadan dooro waxay u dhigan tahay adoo la qaloocinaysid kadibna kor iyo hoos u wad kalarka bedel kalarka blue ka sii kadibna Ctrl+J waa koobiyin kan hoose tag okay kali ku sii kalarka aan jeclaa sii V dooro kor u soo bixi okay hadda loogada xarabta inta inaad watermark ahaan ugu dhigatid loogada aad tagaysaa qaybta kore jirta Ctrl+J ayaa leedahay Ctrl+A centerka gey waa soo dhowdahay kadibna xiriirsan sikinaa opacity-ga waxaan ka dhigaa 20% ayaad ka dhigaysaa 20 ayaad ka dhigay khafiif ahaan copyright-kaada si loo arko sidan u samayn kartaa xogta u muhiimsan sidan waa si qurxin kartaa oo kaleeto design badan waa samayn kartaa intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa qaybtii aan ku baranaynay business card haddii aad ku cusub tahay channelkeena fadlan subscribe like share si asxaab badan ay u faa'iidaystaan adigana aad ka mid noqotid mar walba daawadaha hore daawada fiidiyowyada aan soo gudbino